السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال لبن أصحابتي أنتو جان كحران أنتو عصب لما أنتو تصوروا مقالكن أنتو حربا دي لهد منا مقالكن كيها هضمو مقال هروحن كشرحني سيدي كهلي كرتا جامعة فرية باتشلر سيدي وقاضي كرتا عامل ديجري كلا waxaa ka imaada mowduucii u dambeeyay ama muuqaalkaas waxaa ka imaada su'aalo ah sidee ku xareysan karaa bal inaan sharaxaad iyo macluumaad yar idinka siiyo muuqaalkan maanta waxaan rabaa markii inaan mowduuca kaga hadlo aawasho wacan soo noqod wanaagsan waxaan rabaa maanta muuqaalka inaan kaga hadlo macluumaad yar in ka siiyo jaamacadda iyo qaabka u shaqeyso iyo sida u xareysan kartaba marka haddaan ku bilaabo jaamacadda iyo sida u shaqeyso jaamacaddu waa jaamacad online ah taasoo macnaheedu yahay wax walba jaamacadda ku saabsan waxaa lagu qaadanaya online haddii ay noqoto aqbalkaaga haddii ay noqoto file xareynta wax walba dhigashada imtixaan gelidda wax walba online shahaadada xitaa online ay ku heli doontaa oo lagu soo diray iyadoo warqad ah wadankaaga lagu keena marka jaamacadda boqolkiiba boqol waa online ma aha jaamacadaha qaar iyagoo online ah haddana la xaadiraayo maadooyinka qaar ama مثلا kale imtixaanka meel la tagayo ma aha jaamacadda saas awgeed jaamacaddu waa boqolkiiba boqol online jaamacadda systemka u shaqeysa waxa waaye in laga rabo ardayga soo مثلا kale batch haddaad qaadanayso waxaa laga rabaa inaad dhammayso 120 credit haddii aad maxaa la dhahdaa associate program qaadanaysana waxaa laga rabaa 60 credit 120 waxay u dhigmataa 40 maado 60 waxay u dhigantaa 20 maado marka batch haddaad tahay 40 maado ayaa laga rabaa oo midiiba ay 3 saacadood tahay nidaamka saacadaha iyo creditka haddii aad kulley ma garanay jaamacadaha Soomaaliya iyo sida loo xisaabiyo laakiin jaamacadaha hadda tan jaamacadan iyo jaamacadaha caalamiga sida jaamacadaha Sacuudiga oo hadda mid kamid aan dhigto waa systemku waa isku mid oo maadadu waxay leedahay saacad ay ku leedahay programka oo dhanna saacada ay leeyahay midna kale programka shareecada aan qaadanay wuxuu lahaa 185 saacadood halka programkan uu ka yahay batchkiisa 120 oo farqi badan ay u dhaxeeyaan taa macnaheedu waxay tahay mar walba saacaduhu bataan maadooyinka qaadanaysa badan mar walba saacaduhu yaraadaan maadooyinka laga rabo ayaa yar markii programkan wuxuu ka rabaa 40 maado qiimaha ee lacagta san muuqaalka hore ku sheegay markii hore 100 ay ahaan jirtay hadda laakiin 120 kaas oo laga rabo calaamado 120 laga rabo imtixaankeeda marka galayso imtixaanka markaad inta aan jaamacadda laga aqbalin inta waxa lagu darayaa lacagta aad ku sii bixinayso xareynta ama application fee wax la raado in $60 marka waxa isku dhufsanaysaa 120 40 maado lagu dhuftay iyo 60 adi lacag aad u fara badan waa marka loo fiiriyo lacagaha jaamacadaha Soomaaliya caadiga loo tago lagu bixiyo laakiin waxaan isleeyahay haddii aanad awoodin lacagtaas jaamacaddu waxay ku siinaysaa fursad ah aad free ku dhigan karto haddii awoodana waa iska bixinaysaa lacagtaas san muuqaalka hore ku sheegay waxaa lagaga cafin karaa inaad hesho scholarship ama grant oo ah in free aad in lagu dhigo lagu ogolaado taana waxaad ku samayn kartaa marka hore inaad application kaaga gudbisato kadibna aad xareysato scholarshipka ama grantka aad xareysato kadibna lagu soo jawaabo kadibna sida aad ku gasho waa idin tusi doonaa sida applicationka u bilaabaso iyo scholarshipka qaabka u dalbi doontaba muuqaalka qaybtiisa dambe waxaa intaa kale inaan raaciyo rabaa waxay tahay in maadooyinka jaamacadda iyadoo online ah maadooyinka ay laba qaybood yihiin qayb aan lagaaga baahnayn qof ku ilaaliya iyo qayb lagaaga baahan yahay wax ama qof ay yiraahdaan proctor ama qof ku ilaaliya ama muraaqib qaybaha waxa badan maadooyinka aan u baahnayn muraaqibka u baahnayn ama ilaaliyaha maadooyinka boqolkiiba 25 waxa waaye waxay u baahan yihiin proctorkaas waxaad ku samayn kartaa in qof wadanka kula joogo kale uu ku muraaqabeeyo maadooyinkaas ama online services leeyahay proctor iyo kuwa lamid ah aad inta iska diiwaan galiso xagga qof ku ilaaliya inta imtixaanku socdo aad ka soo hesho waxa kaloo jaamacadda qaabkeeda inta raacin lahaa jaamacadda in ay u baahan tahay taqriiban maado kasta kaaga baahan tahay isbuuci 17 saacadood wax ku dhow ama 20 saacadood oo akhris ah iyo ka shaqeyna sababtoo ah assignmentska aad ay u adag yihiin sanadkii jaamacadda
waxaa la qaataa 5 semester. semester kasta wuxuu soconayaa 2 bilood wax ku dhow 2 bilood ayuu soconayaa adiga 8 week ayuu soconayaa week 9aadna imtixaanka ayaa la galaa 8daas week inta lagu guda jiro week kasta aan dhahay labadii week kasta kadib week saddexaad waxaa laga qaadayaa imtixaan midterm ama imtixaan graded dhahan graded quiz maxaa la dhahaa week lixaadna waxaa laga qaadayaa isna imtixaan kale darajo leh final exam kana waxaa laga qaadayaa week 9aad marka sidaa waxaa ku galaysaa 3 imtixaan week kastaana wuxuu leeyahay imtixaanada dheer assignments ayuu leeyahay assignments kaasoo noocyo badan leh forum wax la raado ama meel muntada ah oo discussion looga baahan yahay inaad post ku qorto dadka kalena postiyadooda aad qiimeyso maxaa la dhahaa una jawaabto waxaa kaloo laga rabaa inaad macalinkan u gudbiso maxaa la raado macalinka maadada assignmentyo qaar assignmentyo kalena in aad u gudbiso arday kugu class ah oo iyagu ay soo saxan adna aad kuwada saxdo systemkaas ay jaamacaddu ku dhigtaa maadooyinka waana system dhinacna ka fudud dhinacna aad u adag wuxuu kaaga baahan yahay waqti badan inaad geliso si aad assignmentska maadaama ay aad u adag yihiin aad ka shaqayn karto jaamacaddu waxay kaaga baahan tahay 2 shardi oo asaasi ah oo muhiim ah qof walba inuu labadaa haysto markuu xareysanayo ka koowaad oo ah in Englishka ku fiican tahay akhriskiisa iyo qoraalkiisa iyo ku hadalkiisaba iyo dhageysigiisaba sababtoo ah muuqaal ay jiri doona iyo waxyaabo badan haddii la qorayahay talabaadna waxay tahay inaad maxaa la dhahaa haysato secondary school haddii aad Englishka maxaa la dhahaa shahaado ka haysato waxaa laga cafinayaa maadada Englishka ama diyaarinta preparationka laga cafinayaa foundationka haddii aad English haysanin shahaado ama wax ku tusaya inaad Englishka taqaanana waxa ku khasban tahay in aad dhigato English preparation course inaad dhigato course-kaas markii hore hal course ayuu ahaa jiro English composition 1 la dhihi jiray hadda laakiin wuu isbedelay isla systemka maaqan wali in la hirgeliyay in kale laakiin hadda waxa laga qaadayaa imtixaanka meesha ku dhigo ayaad ka qaadanaysaa levelka waxa laga yaabaa inuu muddo dheer ku qaato ama muddo kooban Englishka diyaarintiisa ku qaato intaas ay hadda igu soo dhacaysa macluumaad waxa laga yaabaa waxyaabaha qaar inaan ka tagay laakiin intaasaan hadda xasuustaa wax muhiim ah oo isleeyahay oo u baahan tahay inaad ogaato inta aad maxaa la dhahaa gelin waxa kaloo heli kartaa jaamacadda mar walba ay soo saartaa book la yiraahdo haddii la kule catalog la dhaho ay ku jiraan macluumaadka jaamacadda oo dhan qaybtan dambe haddana waxaan gelaynaa sidee u xareysan kartaa ama applicationka isa u xareysan karto daawasho wacan si aad u xareysato jaamacaddan horta waxaan rabaa marka hore intayna xareysashada gelin hadda waxaa furan kaliya waa applicationka laakiin admissionka saxda ah in laga aqbalo waxbarashada bilowdo hadda ma suuragelayso sababtoo termkii koobaad xilligii la is aqbalayo way soo dhamaatay waa mashquulay inaan maalmo ka hor soo geliyo ay ahayd si aad September oo kale u bilaabi kartaan intiina doonaysa laakiin sida aan muuqaalka qaybtiisa hore ku sheegay jaamacaddu waxay bixisaa sanadkii kasta 5 semesterkan hadda koobaad wuxuu dhamaanayaa bisha November ee soo socota marka qofkii hadda xataa applicationkiisa si xareystaa wuxuu waxbarashadiisa bilaabi karaa haddii ilaa ku roon yahay bishan hadda September iyo October November bisha maxaa la dhahaa November 2 bilood hadda kadib uu bilaabi karaa saa awgeed hadda qofka xareystaa applicationka iyo hawsha unbuu sii dhamaynaya maahan waxbarasho ma bilaabi karo intaas horta inaan sheegan rabaa si aad u xareysata jaamacadda waxaad tagaysaa website-keeda oo ah uipeople.edu markaad tagto page-kan ayaa ku soo baxaya oo ah page-keeda home page-keeda ah xaggaa waad ku dhufan kartaa apply now meeshay ku qoran tahay dhinaca way ku taalaa meel walba ku taalaa markaa xaggaa fartoo kale xaggaa waa ka heli kartaa adoo almuhim waxaa ku dhufanaysaa un apply meesha ay ku qoran tahay apply markaa tiraado waxaa kuu soo baxaysaa page-ka application-ka ay ku soo baxaya waa application aad u fudud waxaad ku buuxinaysaa un magacaaga si fudud ayaa magacaaga u buuxinaysaa midna oo kale h haddii aan niraano intana aan niraano k tusaale ahaan aan ka wadaa kana waxaad leedahay midna oo kale l emailka ayaa gelinaysaa midna oo kale k@.com oo kale haddaan hadda iraado haddii aan hadda iraado emailkaaga saxda ayaa gelinaysaa adiga emailkaaga markaa geliso kadib waxaad dooranaysaa fieldiga aad rabto 4 field ee jaamacadda bixiso
computer science oo kale haddaad tiraahdo ama mathalan oo kale haddii aad business administration haddaad tiraahdo waxaa kuu soo baxaya dhammaan courseska hadday noqoto associate oo 2 sano ah, batch oo 4 sano ah, master iyo diplomooyin accounting, entrepreneurship iyo finance waxaa lamid ah. midka aad rabto kala mathalan ayaa saa u dooranaysaa. markaa saa samayso start ayaa leedahay oo ah below applicationka. kadib wuxuu ku weydiinayaa waddanka aad degan tahay. Soomaaliya ayaa dooranaysaa. Soomaaliya markaad doorato magaalada ayaa dooranaysaa. mathalan oo kale Muqdisho ayaad leedahay. magaalada Muqdisho ayaa leedahay. zip code ka Soomaali kule zip malahan 00 iska geli. nambarkaaga waxaa gelisaa mathalan oo kale nambarkaaga mathalan oo kale geli oo saxda ah. kadibna next ayaad leedahay. wuxuu ku leeyahay hadda nambarkan waxbaa ka khaldan miyaa nambarka tiradan qalday. next ayaad leedahay. kadib wuxuu ku weydiinayaa magacaaga. magaca hore haddaad leedahay qasab maaha inay wax geliso haddii ilaa ku roon yahay. kadibna waxaad gelinaysaa taariikhda dhalashadaada. waana inay 16 jir aad ka weyn tahay. mathalan oo kale taariikhda ayaan gelinayaa. macluumaadkan xaggan la gelinayaa 100% waa inaad iska hubisaa, sababtoo hadhow way adag tahay inaad bedesho. editingka uu kugu adag yahay marka aad gudbiso kadib. saa awoodeed magaca iyo dhalashada waa inaad xaggan si fiican iskaga hubisaa. xaggan waxaad ka gelinaysaa waddanka aad ku dhalatay oo nationality-giisa haysato. mathalan oo kale Soomaaliya ayaan ka dhex raadinaynaa. Soomaaliya ayaa dooranaysaa. markaa Soomaaliya doorato genderkaagana male ayaa dooranaysaa ama female hadba kii aad tahay. native language luqadaada dhalashada haddii aynan Soomaali ahayn hadhow Englishka haddii ay English ku hadasho waddanka English oo kale hadduu yahay xagga English aad dooranaysaa. wuxuu kaa caafinayaa shahaadada Englishka. hadda laakiin adig maadaada Soomaali tahay oo kale Soomaali ayaa ku dhufanaysaa. markaad Soomaali ku dhufato kadib waxaad leedahay next markaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay waxbarashadii ugu sarreysay aad soo gaartay maxay tahay. mathalan oo kale high school ayaa leedahay. kadib wuxuu ku leeyahay ma haysataa shahaadadaadii. haa ayaa leedahay ama hadba saa haysato. country of education oo waddanka aad wax ku baratay. Soomaaliya ayaa dooranaysaa. kadib intaa markaa samayso applicationkaaga sidaa ay ku dhan yahay submit ayaa leedahay. submit markaa tiraahdo waxa uu ku weydiinaya hadda ma odhan submit sababtoo ah application saxa ma aha. saxna ma aha inaad dirno application aan saxayn. markaad submit tiraahdo waxa uu kuu dirayaa inaad lacagta bixiso. lacagta applicationka oo ah 60 haddii ilaa ku roon yahay $60. waxa uu kale kuu dirayaa email ay wuxuu ku dirayaa gmail-kaaga ama email ay kuugu dirayaa. email-kaas marka waxa aad ka soo dhex raacaysaa linki ay ku siinayaan. linkigaas ood ku dhufanaysaa. waxa uu ku leeyahay waxaad samaysataa password samayso. passwordka markaad samaysato haddii ilaa ku roon yahay wuxuu ku siinayaa 2 khaanadood oo password aad ku gelin karto. passwordka labada password markaad geliso waxa aad tegi karaysaa haddii ilaa ku roon yahay website-kan ay ku qoran tahay your.uapeople.edu.so ayaad tegaysaa. passwordka email-kaagii aad ku samaysatay applicationka iyo waxaad gelinaysaa passwordkaaga kadibna login ayaad leedahay. markaad login samayso waxaa kuu soo baxaysa page-kan oo ah ay ku jiraan applicationkaagii personal information-kaaga aad ka bedeli karto. xaggan oo ah application-kaaga. xaggan oo ah lacagta iyo waxyaabaha wax la midka ah. xaggan wuxuu ku siinayaa 3 step. stepka koobaad oo ah English appeal oo ah Englishka haddii aad English taqaano kale waxaad dhihi kartaa warqad ayaad gudbin karaysaa oo ah haddii ilaa ku roon yahay warqadaas oo ah waxaan la yiraahdo imtixaanadii mid ka mid ah imtixaan IELTS haday tahay ama haddii ay tahay TOEFL amaba mathalan oo kale shahaado kale oo Englishkaaga sheegaysa ay haysato xagga ayaa gelinaysaa. haddii aanad haysaninna maya ayaad leedahay oo koorsooyinka Englishka ayaa qaadanayna. kadib markaad taa dhamayso qaybtan marxaladda labaad ee kugu xigta wuxuu noqonayaa funding oo ah haddii aad scholarship rabto oo in laga caawiyo aad rabto ayadan xaggan ayaad ka codsanaysaa oo way ku aqbalayaan 90%. xaggaana qaybta u dambeysa waxay tahay waa application-kaagii markaad dhammaystirato save your spot ayaa leedahay oo ah kursigaagii in lagu qabto oo aad waxbarashada si toos u bilaabo. haddaba haddii ay sidan oo kale ku haysato oo ah application fee-gi weli maada bixin ayuu ku leeyahay waxaad samayn kartaa si aad applicationka haddaanad bixin karin applicationkana si lagaga cafiyo applicationka waxaad samayn kartaa waxaad la hadli kartaa admissionka
admissionka ayaa la hadli kartaa emailkooda oo ah admissions@uapeople.edu ayaad email u diraysaa oo ah inaad awoodin maxaa la rabaa applicationka xataa lacagta $60 inaad iska bixi karin. Markaana waxay ku sameynayaan waxay kaa qaadayaan applicationka ay kaa dhiibayaan si aad si toos ah stepska usii dhammaystiri karto. Marka intaa maxaa la rabaa qaabka loo xareeyo jaamacadda waana qaab aad u fudud isleeyahay haddii maxaa la rabaa ay culays ama wax kale in ka imaadaan su'aalo kolley waa isoo weydiin kartaan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan. Waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan fursadan intiina danaynaysa inay waxbarasho hab online u dhigato iyagoo xaafadooda jooga oo aan meelna tegin. aad iyo aad u salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.